wacan oo xiiso la daawada meel kastoo adduunka aad ka joogto halkani waa All Banaadir Online ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah mucaaradka Soomaaliya oo qarka u saaran ku dhawaaqista guddi cusub oo doorasho iyo xaalka doorasho ee Soomaaliya oo dhibaato culus qarka u maraya musharaxiinta doorashada Kenya oo ololahooda ku galaya afku macaysiga sidii ay u soo celin lahaayeen xiriirka xumaaday ee u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya Ahmed Madoobe oo la kulmaya cadaadis midkii ugu badnaa xilli ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah wasiiradii la shaqaynayay warar dhaca oo soo baxayna waxa ay tilmaamayeen in qaar ka mid ah uu xilka ka qaaday hogaamiyaha cusub ee uu yeeshay maamulka Hirshabelle oo durba bilaabay dhaleecayn dhanka hawada hadaladiisa oo laga cabsi qabay inay kiciyaan dagaalo dhex mara beelaha wadadaga halkaasi dawladaha Imaaraadka Carabta Kenya iyo sidoo kale Ethiopia oo si lama filaan ah uga hadlay xalka doorashada Soomaaliya iyo shakhsiga ay doonayaan inuu ku soo baxo oo noqon waayay madaxweyne Farmaajo akhbaraadka dibadda saaxiibayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah madaxweynihii dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu si hordhac u aqbalay guushii uu ka gaadhay Joe Biden kadib tirinta codadkii Mareykanka oo weli meel xasaasiya maraysa intaasi saaxiibayaal waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn baahin wareedkeena imika haatan isu diyaariya daawashada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan haddii ay ku tahay markii koobaad ee channelkana subscribe inoo saar saaxiibayaal aan ku bilaabay sidii hordhaca baahinta warkeena aad ku daawanaysaan mucaaradka filla Soomaaliya ayaa xilligan qarka u saaran inay ku dhawaaqaan guddi doorasho oo cusub taas oo ka barbar shaqaynaysa midii dhawaan ay soo saareen filla Soomaaliya iyadoo xaalka doorashada Soomaaliya ee dadbani uu u muuqdo inuu yahay mid dalka dhibaato lagu halagelinaya isbahaysiga mucaaradka badidoodu xilligan waxa ay ku sugan yihiin magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaana wararka qaar oo la helaya ay tilmaamayaan in gabi ahaantoodba si isku mid ah ay diyaar u yihiin inay mar qura ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho maadaama sida la tilmaamay ay si weyn u salugsan yihiin hanaanka xilligan ay wax u wado dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Khayre Ali Cosoble Cabdiqaadir Cali Cosoble iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda kale ee u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa isku duubni uga imaanaya magaalada Nairobi waxayna warbaahinta kula hadli doonaan magaalada Muqdisho saacadaha soo aadan sida la tilmaamay wararka laga helay xafiisyo ku dhow xubnahan mucaaradka ayaa tilmaamaya in gabi ahaantoodba isku raaceen magacaabida guddi kale oo ka shaqaynaysa doorashada dadban ee la filayay inay ka dhacdo dalka Soomaaliya maadaama qanaaco weyn aysan ku muujinaynin midda xilligan ay soo magacowday dawladda Soomaaliya ee jirta xubnahan mucaaradka ayaa aad u daneynaya helitaanka guddi dhexdhexaad ah oo ay doonayaan inay noqoto maamulka doorashada ka dhacaya Soomaaliya balse xalka ayaa u muuqda inuu yahay mid sii cakirmaya hadiiba ay ku dhawaaqaan guddi cusub oo ay ku tilmaamayaan inay tahay mid doorasho guddida dhawaan ay soo magacowday dawladda federaalka Soomaaliya ee ka imaanaya dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ayay gabi ahaantoodba si isku mid ah ganafka ugu dhufteen xubnaha mucaaradku waxayna sheegeen in guddidani aysan ahayn kuwa khibrad u leh doorashada balse ay yihiin shaqaalihii ka shaqaynayay hay'adda nabad sugidda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo ku-xigeenka Soomaaliya xubnaha mucaaradka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyayba tilmaamayay in dawladda xilligan jirta aysan hor u socod doorasho ahayn marka loo eego tallaabooyinka ay qaadayso arrintaasina waxa ay sheegeen in ay cadaynayso in marnaba aysan aqbali doonin iyagu in wax muddo kororsi ah uu ka dhaco dalka dhammaan xubnaha mucaaradka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay kulamo aan loo kala kicin ku yeelanayay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxayna dhammaantood si isku mid ah uga soo horjeedaan tallaabo kasta oo ay u arkaan inay tahay mid dib loogu dhigayo doorashada dadban ee lagu balansan yahay 2021 xukuumadda Soomaaliya ee xilligan jirta ayaa iyadu markasta waxa ay ku celcelinaysaa diyaar u ahaanshiyaha doorasho si quman ku dhacda waxaana gebi ahaanba mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladdu ay cadeeyeen in dhankooda aysan macquul ka ahayn in dib u dhac uu ku yimaado hanaanka doorashada qaybaha hore weli wararkeena ayaa daawanaysaane musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Kenya ayaa ololahooda ugu weyn xilligan ka dhiganaya soo celinta xiriirka Soomaaliya kala dhaxeeya Kenya
dhammaan musharaxiinta mucaaradka ayaa madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ku eedeynaya inuu ku fashilmay gebi ahaanba soo celinta xiriirkii wanaagsanaa ee iskugu jiray ganacsiga iyo wada noolaanshiyaha kaasoo Kenya kala dhexeeyay dalka Soomaaliya. xubnaha ugu cadcad mucaaradka oo khudbado u jeedinaya mudanayaasha baarlamaanka ayaa tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan haddii ay ku guuleystaan kursiga madaxtinimo ee dalkaasi ay kaga shaqaynayaan dib u soo celinta xiriirkii ay la lahaayeen Soomaaliya maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay ay xiisad cakirnaani ka dhex taagneyd labada dowladood. khilaafka ugu adag ee labadan dhinac dhex yaala ayaa ah qayb ka mid ah badda Soomaaliya ee Kenya muran ka gelisay kaasoo dacwadeedu xilligan ay hortaalo maxkamadda cadaaladda dunida ICJ iyadoo haddana taasi ay jirto ayay dowladda xilligan jirta Soomaaliya waxay cunaqabateyn ballaaran saartay ganacsigii ka imaanaya dalka Kenya gaar ahaan jaadka oo ahaa midka ugu badan ee Kenya uga imaada dalka Soomaaliya. musharaxiintan ayaa dhammaantood si isku mid ah u cadeeyay in madaxweynaha xilligan Kenya ka arrimiya uu yahay shakhsi aan wax badan kala socon siyaasadda geeska loona baahan yahay in isaga la helo bedelkiisa haddii iyagu ay soo baxaana ay si adag uga shaqaynayaan sidii ay ugu guuleysan lahaayeen sidii uu soo noqon lahaa xiriirka labada dhinac. gobolka Gado ay ku sugan yihiin ciidamo Kenyaan ah oo ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM ayaa weerar ay geysteen waxa uu cirka ku sii shareeray xiisadda xurgufta leh ee u dhaxaysa labadan dhinac waxayna taasi sii adkeysay xumaanshiyaha xiriirka labada dowladood. hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xilligan la kulmaya cadaadis midkii ugu badnaa waxaana ka soo horjeestay qaar ka mid ah wasiiradii la shaqaynayay. wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ku meel gaadhka u ah ayaa ku waramaya in 24 saacadood ee ugu dambeeyay uu soo ifbaxayay khilaaf adag oo u dhaxeeya qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. khilaafkan soo cusboonaaday oo ah midkii ugu horeeyay ee banaanka yimaada dhex marana Axmed Madoobe iyo sidoo kale xubnaha wasiiradiisa ayaa la tilmaamay inuu salka ku hayo qaabka magaalooyinka Garbaharre iyo Kismaayo ay uga dhacayaan doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya maadaama labadaasi magaalaba ay yaalaan qaar ka mid ah kuraasta loogu talagalay in lagu soo doorto. Axmed Madoobe ayaa la tilmaamay in soo jeedin uu sameeyay ka cadhoodeen qaar ka mid ah wasiiradiisa oo ugu horeeya wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan waxayna wararka qaar tilmaamayaan in xilka qaadis Janan lagu sameeyay walow si cad uusan uga hadlin maamulka Jubbaland. haddii uu khilaafkani soo baxo tani ayaa noqonaysa fursad cusub oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dhex heli karto mucaaradada cusub ee ku bilaabatay Axmed Madoobe maadaama Axmed xilligan uu ka mid yahay maamulada farakutiriska ee ka dhaga adeegaya guud ahaanba qaadashada awaamirta kala duwan ee ka soo baxaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu durbo warfidiyeenka ka bilaabay dhaleecayn cusub taas oo laga baqanayo inay keento kicitaanka xiisada dagaal oo dhex mara beelaha wadadega deegaanada maamulka Hirshabelle. Cali Gudlaaw Xuseen madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle ee dhawaan lagu doortay magaalada Jowhar ayaa hadal uu ka jeediyay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa laga bixiyay tafaasiilo kala duwan. dadka qaar ee falanqeeya arrimaha Hirshabelle ayaa waxa ay tilmaameen in hadalkiisani uu ahaa mid ugala dan lahaa dadka dega gobolka Hiiraan maadaama looga guuleystay doorashadii ay muddada u loolamayeen ee ah xilka madaxweynaha maamulka Hirshabelle waxa uuna ku tilmaamay dadkaasi inay yihiin kuwa aan waxqabad u lahayn Hirshabelle isagoo tusaale u soo qaatay madaxweynihii hore ee maamulkaasi Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ka soo jeeday gobolka Hiiraan. Cali Gudlaaw ayaa tilmaamay in maamulkiisa cusub uusan ahayn mid caawimo ka raba beesha caalamka iyo cid kasta oo isku tilmaamtay inay tahay deeq bixiye balse uu aad u danaynaya inuu noqdo mid isku filaan gaarsiiya maamulkiisa sida uu hadalka u dhigay. muddo dheer ayay Hirshabelle u baahneyd samata bixin dhinacyo kala duwan balse maysan helin. waxaan rajaynayaa in maamulkaygu uu noqdo midkii ay u baahnaayeen shacabka Hirshabelle ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay. hadalkiisan ayaa u muuqda mid uu ku durayo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan waxgaradkooda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada arrintaas oo dhalin karta in mar kale khilaaf hor leh uu yimaado.
dowladaha isu tagay Imaaraadka Carabta iyo Kenya oo markii horeba si adag u dhaliilsanaa soo laabashada madaxweyne Farmaajo ayaa markan si lama filaan ah waxa ay garab uga heleen Itoobiya iyagoo aad u daneynaya in gebi ahaanba Farmaajo uu noqon waayo shakhsi soo laabta doorashada 21 ilaa 24. siyaasi u dhashay dalka isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa boggiisa Twitterka ku qoray in Imaaraadka Carabtu uu iskaashiyo dhow la yeelanayo dalalka Itoobiya iyo Kenya si ay uga caawiyaan si Farmaajo uusan mar dambe u soo laaban lahayn, waxayna dhammaantoodba diyaarinayaan shakhsi ay u arkaan inuu yahay beddelka booskiisa kaasoo fulinaya guud ahaan badanaha ay ka yeeshaan Soomaaliya. saddexdan wadan ayaa xilligan waxa ay bilaabayaan olole baahsan oo ay doonayaan in faragelin togan iyo mid tabanba ay ku yeeshaan doorashada dhowaan ka dhacaysa Soomaaliya, walow dowladda xilligan jirta ay si adag indhaha ugu hayso xubnaha ajaanibta daneynaya inay ka qayb galaan doorashada amaba ay faragelin ku sameeyaan. ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka looga guuleystay doorashadii dhowaan dhacday ayaa waxa uu si hordhaca u aqbalay guushii Joe Biden. wararka laga helayo gobolka uu ku sugan yahay madaxweynaha dalka Mareykanka ee aan weli xilka wareejin Donald J. Trump ayaa waxaa la tilmaamay in qaab ku meel gaadhnimo ah uu u aqbalay qayb ka mid ah natiijada guushii Joe Biden. dadka qaar ee ku sugan gobolka uu joogo Trump ayaa waxa ay tilmaameen in muddooyinkii ugu dambeeyay Trump uu la kulmayay cadaadisyo dhinaca siyaasadda ah, arrintaas oo ku qasabtay inuu aqbalo in Joe Biden uu yahay shakhsiga kaga guuleystay codad weli doorashadoodu Mareykanka aysan ka dhicin abid. garyaqaanka Donald Trump oo muddooyinkii ugu dambeeyay waday dhaqdhaqaaqyo uu ku doonayay gudbinta dacwad la xidhiidha in doorashadu ahayd mid ku dhacday qaab musuqmaasuq ah ayaan ilaa hadda jawaab rasmi ah soo saarin. guud ahaan saaxiibayaal wararkii xilligan waa naga intaa.